asna wuxuu dhahaa marka moobeelada dadaa ii dhiibtay waan daweynayaa moobeel aan dhiibay malaha adigu way murmurmeen ninkaana qoriga afsaaro uu ahaa xabadku ugu dhuftay naaska korkiisa ugu dhuftay marka nafta dhulka kulama dhicin waa sida uu sheegayo goobjoogaha xitaa isaga qudhiisa oo joogay goobta falka uu ka dhacay ayaa halis u galayba inay dilaan laakiin isagu isma dhibin telefoonkiisa fartu ka saaray Sultan Cabdinaasir Muxsin wuxuu ahaa aabba lama dhihi karo xitaa waa awoowa Soomaaliyeed ilmihiisa ayaa ilmo dhalay deegaankiisa ayaa caaw lagu dilay maxaa loo dilay marka telefoonno yar yar goob ganacsi oo ku lahaa qoryooley jaajarada dadkay u keensadaan si lamida nolosha qotulyoomka caruurtiisa iyo kuwa dhaleenba halka kaga shaqeysto ayaa nafta la muutiyay waliba isaga oo markaa ku qeylinayo ha idilina waa sidaan ka soo xiganaya goobjoogaha waa kuwa marka ninkan odayga ee la dilay wuxuu ahaa suldaanka beelaha Carbeed ee dega gobolka Shabeellada Hoose hadda waa suldaan ma ahan ninka la dilay inkastoo maruu fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka lagu dooro daaweyn qaliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii dilka markasta uu xaraam yahay haddana suldaankii beelaha Carab ee degaya gobolka Shabeellada Hoose oo dhan ayaa caawa loo dilay telefoon iyo lacag yar yar oo shilin Soomaali ah xitaa aan dhameen wax ka yar 20 ilaa 10 dollar waa sidaan ka soo xiganaya goobjoogaha halkan iiga warbixin doono yaa dilay marka waana kuma cidda doonayso in ragii dilay wax ka qabtaan koor intaan gudaha u sii galin oo aan ku sharaxin waxaan ka codsanaa ka soo qaad waalidkaada qof kamid inuu geeriyooday sida ugu duceyn lahayd hadda waa sida ugu duceyn lahayd ina ugu duceysid aabahan Soomaaliyeed ee waayeelka ah ee caaw sida xaqdarada loogu dilay dhulkiisa yaa dilay marka waad isweydiinaysaa ciidan askar weliba maandooriye cabsan hadda waa kuwa la doonaya dalkeena inay difaacaan oo ay ka ilaaliyaanba cadowga dhan kasta ugu yimaado haddii dawladaha shisheeye sida Kenya iyo Ethiopia ama shabaabka dhibaatada ku haya dalkeena waa raggii la doonayay inay ka dhiciyaan bulshada laakiin sheekadu waxay ku soo aruuriyeenba jeebkooda bulshada jeebkooda waxa ku jira inay ku dilaanba iyaga oo weliba cabsan hadda ninkan odayga afeere adigu ina caawisid ma ahan ninkan aabaha Soomaaliyeed ma dhibaateen lahayn adigu maskaxdaada ay joogto oo qof caadi ah aabahan Soomaaliyeed ina caawisid ma ahan adigu ma dhibi lahayn ma la dili lahayn iska daadile xitaa wax yar oo dhibay kuma sameyn lahayn laakiin kuwii u dhaartay dalka iyo dadka hadda waa ciidan dhan ee qaran wax la sheegaya waliba qaranka way si kale yihiin ciidankii militariga ee la doonayay in nafurnimo u sameeyaan bulshada ayaa dhibaato u geystay ceeb mid ugu foosho xun ay ciidanka markaa sharafta ciidannimada ay ku dheeleen oo ay dhaxgeliyeen goobjooga ayaa hadlaya marka sida wax u dhicin ayuu sharaxi doonaa mar kale waxaan ka codsanaa muuqaalka in la sii wadaagto saaxiibadaada si meel fog u gaaro odaygana loo duceeyo haddeeray u tageen haddii markii salaada maqrib laga soo baxay waxay dhaheen moobeelada dukaanka ku jira iyo lacagaha isu soo dardara soo dhiib asna wuxuu dhahaa marka moobeelada dadaa ii dhiibtay waan daweynayaa moobeel aan dhiibay malaha adigu way murmurmeen ninkaana qoriga afsaaro uu ahaa xabadku ugu dhuftay naaska korkiisa ugu dhuftay marka adiga xabad israacsaneeda oo ku dhuftay ninkaana nafta dhulmaba lala dhicin waa lala soo cararay istaalkaa la keenay oo gargaar isla markiiba dhaqaatiirta waxay dhaheen qofkan mid waa gudbino wayshtaanka mar kale waxaan ka codsanaynaa qaybta hoose ee commentiga faalada ducaa ugu dhigtid mahadsanideen